daawadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore boqorada isteelka oo baraha bulshada si weyn loogu faaqidayo arrin la yaab leh oo sameysay maxay tahay arrinta ay sameysay yaasa dhulka ku jiidaya intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad malow dhahdaan siina sheer garaysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan haddii aad nagala socoto dhinaca barteena YouTube waxaan kugu xusmeynaynaa in janaalka subscribe aad dhaato gambaleelkana aad furato si markaasi muuqaalada aan halkaasi ku baahino ay toos ay kugu soo dhacaan iyadoo aan lagaaga sheekeynayn u hagaag saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday warka la xiriira boqorada isteelka taa oo dhowaan muqdisho ku gashay arooskii ugu saameynta badnaay midka gilgile caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidoo kale kan Hargeysa si kastaba ha ahaatee boqorada isteelka ayaa weeraro dhinaca baraha bulshada waxaa ku soo qaaday dad si weyn loogu garanayo baraha bulshada gabadha ku jirta toddobaadka xorriyadda amba sidoo kale toddobaadka malabka ayaa wajahaysa caqabadooyin dhinacyo badan taabanaya hase yeeshee dadka si weyn u falanqeeya arrimaha baraha bulshada ayaa waxay codsanayaan in gabadha laga daayo weerarada dhinac kasta kaga imaanayo intii ku jirto maalmaha toddobaadka inkastoo boqorada xilligan ay tahay mid aan isdifaaci karin marka loo eego waqtiga ay ku jirto gabadhan ayaa dhawaan shidatay shumaca Muqdisho taasi oo qabsatay arooskii uu saameynta badnaayay taariikhda ee Muqdisho ka qabsama marka loo eego xilligan boqorada isteelka weerarka ugu weyn wuxuu kaga imaanayaa dhinaca TikTok iyo YouTube Facebook ayaa markaas ku soo biiray waxa uu nayaa weerarkaas mid markaasi afarta jaha ah dad caan ka ah baraha bulshada oo 1 iyo 2 ilaa iyo dhowr la tiri karo ayaa gabadha weerarayo laakiin waxaad u moodaa inay saki xishoonaynin oo xitaa gabadha loogu sabrayn maalmaha xorriyadda dhacdo si weyn dadku ay ugu argagaxeen ayay sameysay taasina ayaa sababtay in gabadha weerar aad u culus lagu qaado walow aan ku talinayno in la hakiyo weerarada dhinaca baraha bulshada ee gabadha lagu hayo maadaama boqorada isteelka xilligan ay tahay mid aan wax jawaaba bixi karin marka loo eego maalmaha ay ku jirto waxa ay ku jirto toddobaadkii malabka waxa ayna dadka ka dalbanaysaa in xilligaas inta laga gaarayo la xushmeeyo waxaana sidaasi qaba dadka saameynta weyn ku leh baraha bulshada gabar lagu magacaabo maslaxo oo dhawaangal ah muddooyinkii ugu dambeysana baraha bulshada ka eeday mid soo caan baxday ayaa ugu weyneeday dadka shaarbaha soo saartay taasi oo ku eedeysay wax markaasi dadka dhan ay si aada ay ugu xumaadeen gabadha u wareegtay dhinacaasi Hargeysa ayaa waxa ay sameysay falkii ugu laabka badnaay kadib markii ay iska diiday calankii ay ku soo hoos gambatay amba calankii ay ku hoos nooleeday waxa la arkay iyadoo haysata calanka Somaliland ceeb ma ahan in ay calanka Somaliland ay haysato ceebna ma ahan in calanka Soomaaliya ay haysato macnaha labada xabo waxa ay kala yihiin mid waa heer federaal midna waa heer dowlad goboleed dadku sidii ay aaminsan yihiin hase yeeshee gabadhan oo babis ahaan u aragtay in calanka Somaliland ay isku babiso ayaa waxa ku soo qaldamtay gabar kale taasi oo ay ugu jawaabtay in ay babis ay haysato haddaba waa maasantiin dhamaantiin ee noo sheer gareeya muuqaalkan